toban maalmood oo xiriir ah madaxweyne Farmaajo wadanka ma uusan joogin tira ahaan marka la isku celceliyo boqolkii maalmood ee uu madaxweynaha ahaa waa caado xun waxa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha doorashooyin kala duwan oo dunida ka dhacay waxa isku xilli la doortay madaxweynayaashan dhowrka ah oo Farmaajo ku jiro dhammaantood boqolkii maalmood ee ugu horeysay safarro kuma aysan mashquulin qaarkoodna waxay ku guuleysteen in salka ay u dhigaan ajandaha ay dalalkooda ku hogaamin lahaayeen maalin khamiis 6 Abriil madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in dalku uu galay xaalad dagaal isagoo xiran tutaha ciidanka 3 maalmood kadibna waxa uu safar ku aaday dalka Imaaraadka 3 bishan May xilli madaxweyne Farmaajo Itoobiya booqasho ku jooga ayaa la dilay wasiir ka tirsan dawladda dib ayuu dalku ugu soo noqday maalinkii xigtay si duugta uu kaga qayb galo balse 5 maalmood kadib waxa uu u safray London Farmaajo waxa kala mid ah dhanka safarada madaxweynaha cusub ee Gambia Adama Barrow baarlamaanka Gambia ayaa madaxweyne Adama ku eedeeyay in madaxweynaha uu xubsibtay wasiir arrimaha dibadeed shaqadii gudaha looga baahnaan u dayacay Adama waxa lagu haystaa 4 bilood oo 4 goor safray halka Farmaajo uu 8 goor maray 3 bilood oo madaxweyne ahaa hadaad isleedahay maxaa loo sheegayaa safarada madaxweynaha su'aashaas Farmaajo ayaa kaaga jawaabaya waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas سفر